beesha garxis ugu soo jeeda runtii sida ina ka cabdinaasir sheegay aragtidiisa la qabaa oo hadee inuu kala dagaalka uu ku dhoolatuskaas uu jinay laakiin aysan beeshiisu la qabin Portugal ahaan beeshiisu watay shirtay burca ku shirtay meelaha Soomaaliland diga isugu yeedhay hadii doorashada madaxweynuhu qabo ay doorashada madaxweynaha soo horeysay waayo tawarrada kama qayb gali doono marka taas ay kulli ku ahayd kala dagaalka kaga kulmay xukuumadda waa kulli iyaguna laga warsugayaa damaantii doorashada ururada baad laakiin ma jirto xaalad dagaal iyo xaalad cabsi ah oo kala xaalad kulli hadda taagan oo diiwaangelinta ugu dambeysay dadkii imka qaan gaaray iyo kuwa kale kalumeen saddex goor ugu dambeeyay hadda gabagabo ku dhow la rajaynaya kulli gudda doorashada ku waqaa xilliga doorashada la qaban doono marka waa xoogeeya waa xaaladda siyaasadda oo farqiga badan hadda markaas ay gudgudiyaysa laakiin ma jirto walaade ka soo daareen qaylada afka wax ku isku raahdaa oo soo hanjabnaa oo social media xabadaha iskaga ridnaa laakiin ma jirto qoriga anaga marka reer Arajan wadadii mareen ma marayno qorshaha inagu ma jiro laakiin sidii isbedel u iman lahaa dalkan waa u baahan yahay dhiig cusub lagu shubi lahaa xisbiyada tan mandate-kooda dhacay ururadii sidii saddex xisbiyo tobanka sano soo socda dalkan hoggaamin lahaa idana wala rajeynayaa ka taas bay iyagu ka gilgilinayaan ururada la horeysiyo ay kulli Suudaanka rayga Suudaaniga doorashada madaxweynaha la soo horeysiyo doorashada madaxweynaha la soo horeysiyo kulli waa kala calaf qaadaya kulli waxaan la rajeynayaa sida وهذه دير الشيفيان بنا ورقي سومالي حرشة كلها لكن السوريان ورودن هذا الشوجة يصدق حسبية إبادة الكبرى تمي دونا صدق حسبية سبحانه وقام دونا كدرنا مش تورشة بالحوينا يلا بدروا دونا وأنا حل لحب لو تقول سوق بقولك لكن أحب على تغرشات يد ذلك يهشيسك حكومة يحب يسامري السياسة هاي صوب بندقة وأنا اللي أشياء مهمة لكن علاد ما جتوا وأنا شباب اللي يقول سنة قبل كوسنا وأنا والله تسوي سياسة ما راح كله وأنا بقول السلام عليكم